قرآنك قرآنك كلامك رحمانك قرآنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal meel badooyinka joogtaan waa walaalkiina maxamed cabdu maxamed yuusuf. insha Allah muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 7 dardaarankan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu u dardaarmay saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam mid kamid ah. saxaabigaas magaciisa uu yahay Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. saxaabigani ayuu wuxuu u dardaarmay nabiga sallallahu alayhi wasallam 7 dardaaran ayuu siiyay. u fiirso waa 7 dardaaran. nabiga sallallahu alayhi wasallam Abu Dharr kaligiisa muusan la dardaarmaynin, sidoo kale anagana uu noo dardaarmay nabiga sallallahu alayhi wasallam. haddaba waa maxay 7 dardaaran oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu siiyay Abu Dharr radiyallahu anhu؟ وانا حديثكي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. صادرت مركة تضوضاسي دردارا نبي صلى الله عليه وسلم وحكو بلاوي وفيرسو لقيسو أبا ذر رضي الله عنه. وأصيق أيا وحولي هيبا أبا ذر أوصاني خليلي ب7 أيولي أبو ذر خليل كي ونبي صلى الله عليه وسلم وكوضو أي وحولي هيوحو دردار مي تضو أرموت إنان سميو. waxaynu ognahay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuusan laheenin khaliilna waxaa walaalayaal waa qofka marka aad isku dhex gashaan oo aad u jeclaatid qofkaasi. jecelkaasi marka nabiga sallallahu alayhi wasallam ciduu siiyay ma jirto, oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay walaw kuntu muttakhidan khaliila lattakhadtu Aba Bakrin khaliila. haddaan samaysan lahaa khaliil saaxiib qof aan aad u jeclahay, haddaan samaysan lahaa waxaan ka dhigan lahaa khaliil Abu Bakr ayuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam. saada nabiga sallallahu alayhi wasallam khaliil ma uusan laheenin. halkan Abu Dharr wuxuu leeyahay khaliilkaygii wuxuu ii dardaarmay 7 arrimood. sidoo kale xadiis kale Abu Hurayra asigana wuxuu leeyahay awsaani khaliili. marka labadooda culimadu waxay ay leeyihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaga ma uusan ka dhigin khaliil ee ayaga ayaa waxay ka dhigteen nabiga sallallahu alayhi wasallam khaliilkoodii ayay ka dhigteen, koodii ay jeclaayeen ayay ka dhigteen. saadaad marka nabiga sallallahu alayhi wasallam uusan laheenin khaliil. Abu Dharr wuxuu leeyahay marka awsaani khaliili ب7 7 arrimood ayuu ii dardaarmay. midda koowaad Abu Dharr wuxuu ku dhahay bixubbil masaakiin wa an adnuwa minhum, inaan jeclaado masaakiinta iyo inaan ka ag dhawaado ayaga. masaakiinta inaan jeclaado, masaakiinta oo la jeclaado walaalayaal waa arrin aad u weyn. dadka waxay aad u soo dhaweystaan dadka jeebkooda uu buuxo, sharaf dadka dhexdooda ku leh, dadka ay wada qiimeeyaan, dadkaas ayay soo dhaweystaan. laakiin midkay aad ku liidaan, aan la fiirinin, aan la danaynin, waa miskiinka. nabiga sallallahu alayhi wasallam Abu Dharr wuxuu ku leeyahay soo dhaweyso miskiinka, ha iska fogeenin, jeclow, u dhawaaw ayuu leeyahay. u dhawaaw maxaa laga wadaa? bimacnaa xaaladooda ogow, ka warhay, waxaad awoodi kartid sii, hadal wanaagsan kula hadal, farxad geli, niyadda ha ka jabinin, la saaxiib, ha fogeenin, soo dhaweyso masaakiinta ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u dardaarmay Abu Dharr. kaasi waa midda koowaad, inaan jeclaado masaakiinta. hadduu ilaahay kaa dhigay mid jecel masaakiinta, dadka la liido, dadka ducafada ah, hadduu adiga kaa dhigay mid dadkaasi qalbigiisa loo geliyay jecel, aad soo dhaweysanaysid, aad wax taraysid, aad jeceshahay, ogow waa nicmo. waa nicmo dad badankooda laga qadiyay, dad badankooda ay ilaaween. taasi hadduu ilaahay kuu manaystay alxamdulilaahi dheh. sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam allah ayuu wuxuu ka bari jiray oo wuxuu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbal masaakiin. allow waxaan ku weydiisanayaa jacaylkaaga, sidoo kale
waxaan kaloo ku weydiisanayaa masaakiinta jaceylkooda inaan jeclaado. taasi waa midda koowaad uu nabiga sallallahu alayhi wasallam u dardaarmay Abaa Dharr al-Ghifaari radiyallahu anhu. midda labaad nabiga sallallahu alayhi wasallam Abaa Dharr radiyallahu anhu wuxuu u dardaarmay wa an andhura ila man huwa tahti wala andhura ila man huwa fawqi. Abaa Dharr wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale wuxuu u dardaarmay waa midda labaad inaan fiiriyo dadka iga hooseeya, aanan fiirinin sidoo kale dadka iga sareeya, dadka ka sarsareeya. weligaa lagu mashquulo, lama raacraaco, lama fiiriyo, sidoodii camal la iskama dhigo. waxaa lagu mashquulaa oo la fiiriyaa dadka ka hooseeya, dadka adiga ka liita oo aad wax dhaanto ayaa la fiiriyaa. sideedana adduunka dadka ka sarsareeyo lama fiiriyo, dadka ka hooseeya ayaa la fiiriyaa. laakiin markii aakhira la dhaho, xagga khayrka markii la dhaho, in loo dadaalo, in loo degdego, in la gaaro, waxaa la fiirsadaa dadka ka sarsareeyo, dadkii wanaagsanaa meesha ay gaareen, hamigooda meeshuu ahaa, dadkaasi ayaa la fiirsadaa. laakiin adduunka markii la yimaadana waxaa la fiiriyaa dadka ka hooseeyo. taasi ayaa marka waxay keenaysaa sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis kale uu ku cadeeyay nicmooyinka adiga Allah uu ku siiyay inaadan yasin, inaadan xaqirin. marka nicmooyinka alle uu ku siiyay waxaad ku dareemi kartaa inaad nicmo haysatid dadka ka hooseeya mar walba fiiri. caafimaad baa Ilaahay ku siiyay, waxaad arkaysaa qof caafimaad dari hayso. caafimaad baa Ilaahay ku siiyay, waxaad arkaysaa dad isbitaalada jiifo. caafimaad aan Ilaahay siinin oo imtixaamay ayaad arkaysaa. marka aragtid maxaa dhahaysaa alxamdulillaah, Ilaahaygi arrintaasi aniga caafimaad iga siiyay, oo caafimaad taama i siiyay, alxamdulillaah, Ilaahay aan ku shukrinayaa. indha ayaa Ilaahay ku siiyay, markaasaa waxaad aragtay qof indhoola ah, maxaad dhahaysaa alxamdulillaah, indhahani oon si fiican wax u arkaayo allihii i siiyay ayaa mahad iska leh. sidoo kale Ilaahay gacmo ayuu Ilaahay ku siiyay oo wada xub aad ku qabanaysid, meesha rabta aad ku gaaraysid. waxaad aragtay qof gacmo la'aan ah, maxaad dhahaysaa alxamdulillaah, allihii gacmahayga oo taam iga yeelay, qofkaasina Ilaahay ka qaaday. saadaad marka asiga uu imtixaaman yahay, adigana waa imtixaaman tahay. nicmooyinka alle ku siiyay ayuu Ilaahay kugu imtixaamaya. miyaad ku kufrinaysaa, mid waad ka shukrinaysaa, asagana waa imtixaanan yahay. saadaad marka dadka ka sarsareeyo ha fiirinin, dadka ka hooseeya fiiri. taasi marka mar walba waxay ku dhaweynaysaa inaad ogaatid nicmooyinka alle uu ku siiyay. in badan waad shukrin doontaa, Ilaahay ayaad u mahad celin doontaa. taasi waa midda labaad oo nabiga sallallahu alayhi wasallam Abuu Dharr uu dardaarmay. midda saddexaad nabiga sallallahu alayhi wasallam Abaa Dharr wuxuu ku leeyahay wa an asila rahimi wa in jafani, inaan xiriiriyo qaraabadeyda inaan xiriiriyo, haba igooyaane, haba i xumeeyaane. waa meesha ugu adag walaalayaal. qaraabadaada oo ku xumeynaysa, oo ku goynaysa, oo hadal xun ku dhahaya, haddana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku leeyahay xiriiri, ka warhay, la hadal. si xun markay kula hadlaan si wanaagsan ula hadal. waxaad haysatid wax ku tar ayaga. qaraabaduna walaalayaal waa wixii ka imaada dhanka aabbo iyo dhanka hooyo, wixii ka imaado ayaa qaraabada la yiraahdaa. saadaad marka kuwaasi qaraabad inaad xiriirisid, afku waad ka xiriirin kartaa. waxba ma haysatid, laakiin salaanta ugu dadaal, xaaladooda weydii, wax ay ku sugan yihiin la soco. maalinku Ilaahay jeebkaaga wax soo geliyana wax ku tar. xiriirinta qaraabada waa waxyaabaha ugu weyn Ilaahay loogu dhawaado walaalayaal. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qofkii jecel in irsaaqada loo waasiciyo, cimrigiisa Ilaahay u barakeeyo, ha ku dadaala ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam qaraabadiisa inuu xiriiriyo.
taasi markaa waa mid saddexaad oo nabiga sallallahu alayhi wasallam u dardaarmay Abaa Dhar